wafdigii guddiga fulinta ee golaha deeq-bixiyayaasha qaramada midoobay oo maanta booqasho ku maray meelo kala duwan oo ka jira deegaankeenna ayaa waxay wafdigani ugu horeyn kulan ballaadhan hoolka shirarka ee xafiiska madaxweynaha kula yeesheen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo weliba wasiirada xafiisyada heer deegaan waxaana kulankan xog isweydaarsiga furitaankiisa ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo wafdigani guddiga fulinta golaha deeq-bixiyayaasha qaramada midoobay siiyay warbixin kooban oo ku saabsan deegaanka. It's my pleasure to welcome you to our regional estate. We are very pleased with your visit to Ethiopia in general and to our region in particular. We are extremely delighted to have you here. Please welcome to Jijiga, a city we would like you to consider your other home away from home. And a city where all of its people have stood up for your visit. We are indeed grateful to you for your choosing our region as a place of your field visit. Dear and respected guests, as an introductory remark, Somali Regional Estate is one of the 9 regional states of Ethiopia that started with the realization of democracy and federalism in Ethiopia. farxad bay ii tahay inaan idinku soo dhaweeyo deegaanka Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay booqashada aad ku timaadeen guud ahaan Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida runtii aad ayaan ugu faraxsanahay booqashadiina fadlan ku soo dhawaada gacmo furan magaalada Jigjiga dadweynaha magaalada Jigjiga oo dhamaantood u taagan imaantinkiina iyo soo dhaweyntiinaba runtii annaguna aad ayaan ugu faraxsanahay doorashada loo doortay deegaanka Soomaalida in ay hay'adaha deeq-bixiyayaasha ee UN-ta booqdaan mudanayaal iyo marwooyin deegaanka Soomaalidu waxa uu ka mid yahay 9 ismaamul deegaan ee uu ka kooban yahay wadankani baaxad ahaan deegaanka Soomaalidu waa deegaanka labaad ee ugu weyn wadankani Itoobiya baaxadda deegaankuna waa 350,000 oo kiiloomitir square waxa uu ka kooban yahay deegaanku 9 gobol 4 ismaamul magaalo iyo 67 degmo xagga tirikoobka dadka ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxa lagu qiyaasaa in ka badan 5.1 milyan tii oo boqolkiiba 85 ay ku nool yihiin miyiga bulshada ku nool deegaanka Soomaalida badankoodu waa xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato beeraley deegaanka Soomaalidu waa deegaanka ugu badan xagga dhaqashada xoolaha ee wadankani Itoobiya sida geela idaha qoorta madow iyo adhiga oo ah kuwa ugu tirada badan deegaanku waxa uu leeyahay 4 webi oo waaweyn ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu bogaadiyay imaatinka wafdigan hay'adaha deeq-bixiyayaasha isaga oo ku booriyay in ay sii wadaan taageeradooda. Finally, I would like to take this opportunity to thank the international donor community and the United Nations agencies for their financial and technical ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadnaqo hay'adaha caalamiga ee deeq-bixiyayaasha iyo hay'adaha UN-ta caawimaadkooda ay ku caawinayaan 20kii sano ee ugu dambeysay guud ahaan wadankani Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida deegaanka Soomaalidu waxa uu fursadani kaga faa'iideysanayaa in uu ka codsado in hay'adaha caalamiga ee deeq-bixiyayaasha iyo hay'adaha UN-ta in ay sii kordhiyaan sanadahan soo socda deeqda ay bixiyaan wafdigan guddiga fulinta ee golaha deeq-bixiyayaasha qaramada midoobay oo ay ahmiyadda booqashadani ahayd in ay eegaan sida hawlaha loogu talagalay loogu fuliyay deeqaha ay bixiyaan ayaa waxa wafdigani intii ay ku jireen kulankan warbixin ku wajahan xaaladda deegaanka ee dhinaca horumarka iyo nabadgelyada iyo weliba kaalinta hay'adaha UN-tu ay ku leeyihiin halkaasi ku soo bandhigay la taliyaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee dhinaca arrimaha bani'aadanimada mudane Cabdifataax Axmed islamarkaana ku faahfaahiyay heerka ay gaarsiisan yihiin adeegyada aasaasiga ah ee bulshada la gaarsiiyo wafdigan oo u horkacayay ambassador Jostel Lero ayaa dhinacooda halkaasi ku soo bandhigay su'aalo kala duwan oo ku wajahan dhinaca deegaanka iyadoo halkaasna mas'uuliyiintii ugu sarsaraysay ee heer deegaan kaga jawaab bixiyeen su'aalahaasi kulankaasi kadib ayaa waxay wafdigani guddiga fulinta golaha deeq-bixiyayaasha qaramada midoobay ay booqasho ku tageen tuulada Hare oo ka tirsan degmada Jigjiga halkaasna ay ku soo
indhaindheeyeen mashruuca ceelasha biyaha ee laga sameeyey tuuladaasi waxaana mashruucan si wadajir isaga kaashaday xafiiska horumarinta khayraadka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo hay'adda UNICEF. mashruucan oo ay ku baxday lacag dhan 4.5 milyan oo bir ayaa waxaa ka faa'iideysanaya dad gaadhaya 18,000. haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo booqashadii wafdigan ku wehelinayay ayaa bulshada ku dhaqan tuuladaasi Haare u ballan qaaday in xukuumaddu ay mashaariico kala duwan oo dhinaca biyaha ah ka samayn doonto halkaasi. wafdigani guddiga fulinta ee golaha deeq-bixiyayaasha qaramada midoobay ayaa waxay ka dib booqdeen tuulada Quudley oo ka tirsan degmada Qabri Bayax oo laga wado barnaamijka SafetyNet-ka ee damaanad qaadka cuntada. waxaana barnaamijkan waqti xaadirkani uu ka howlgalaa 32 degmo oo ka tirsan deegaankeenna waxaana si wadajir isaga kaashaday xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo weliba hay'adda WFP-da. waxaa waqti xaadirkana ka faa'iideysta dad gaadhaya 730,000 oo qof. booqashadii labadani tuulo kadib ayaa waxa ay wafdigani dib ugu soo laabteen magaalada Jigjiga ayna soo indhaydheeyeen cusbitaalka weyn ee Referral Hospital oo hadda uu gabagabo ku dhow yahay dhismihiisu. waxaana booqashadii cusbitaalkan weyn ee Referral Hospitalka kadib wafdigani uu horkacayo Ambassador Jostel Lero oo la hadlayay ESTV uu sheegay in ay Ethiopia ay waqti xaadirkan ku tallaabsatay horumar wanaagsan. Some of the UN boards, and we wanted to see how the UN is assisting the government and authorities in Ethiopia. waxaanu ka soconaa hay'adaha deeq-bixiyayaasha UN-ta waxa aanu rabnaa inaanu ogaano sida ay UN-tu u caawinayso dadka iyo dawladda. runtii waxaanu aad ugu riyaaqnay howlaha ay UN-tu ka wado iyo sida uu deegaanka Soomaalida ula jaanqaaday hay'adahan deeq-bixiyayaasha. waxaanan aad ugu faraxsanahay sida weyn ee naloogu soo dhaweeyay deegaanka Soomaalida. annaga oo u mahadnaqayna ilaa haatan meelihii aanu kormeerka ku soo marnay ayaa waxaan ku soo aragnay horumaro kala duwan oo na farxad geliya sida barnaamijka SafetyNet-ka ee damaanad qaadka cuntada. waxay sidoo kale xubnaha wafdigani guddiga fulinta ee golaha deeq-bixiyayaasha qaramada midoobay ay ka qayb qaateen beerista dhir xubnahani wafdiga loogu magac daray iyo weliba qaar ka mida mas-uuliyiinta heer deegaan. wafdigan ayaa la rajaynayaa in ay booqasho ku mari doonaan meelo kala duwan oo ka tirsan deegaankeenna.